بسم الله الرحمن الرحيم. موادنين الصومالية ما أنتوا كود لوليو ما أنتوا مالنتي دلكن وحروبي ومديننا أي مد نقطي أنا قدرنا هاي اسبهاي سيجا مدينتا يسوع علينتا رجض ومدة الصومالية الرجو وحنجعلها ومدة الصومالية ميل كستو يجوغان إن لو ذاقنو فرحة داس وين ما أنتوا كلا ولا ريال لح iyo konton sano ka hor waxaa isu soo baxay dad gaaraya 2 milyan iyo 500 oo kun oo qof oo Soomaali ah. dadkaasi waxay joogeen magaalo iyo miyi. dadkaas waxay ahayd dad Soomaali oo qabiil walba leh. dadkaas waxay u dabaaldegayeen inay ahayd maalin ay ku faraxsanaayeen inay ka guuleysteen gumeystihii nacabka ahaa oo wadanka haystay iyo calooshoodii u shaqaystayaashii la shaqaysan jiray. dadkaas farxadoodu waxay ahayd inay u arkeen in wadankan uu ku dambeyn doono barwaaqo, in dadka ka dambeyn doona aan mardama la gumaysan doonin, inaan qof Soomaaliyeed mardama la quursan doonin, in qof kastoo Soomaali ah ay u dhiman tahay cizi iyo sharaf. taa weeye hamigii iyo rajadii ay lahaayeen waalidkeen. waxaan rabaa inaan idiin sheego 56 sano kadib riyadaasi ma rumoobin. rajadaas ay waalidkeen lahaayeen xaqiiq ma noqon. ummadii ay ka tageen waxay noqotay ummad ay sugaysa dhibaato badan, qax, ummad ay sugaysa faqri iyo gaajo iyo amaan darro. dooda ugu weyn Soomaaliya maanta ka taagan oo shacabka ku nool dhaxtaal waxay tahay oo ay Soomaalidu isku hayaan Soomaaliya ma xorba mise xor maaha. meeshaasana ka garan kartaa niyad jabka iyo murugada dadkeena haysata. walaalayaal muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno in farxad maalin kaliya aysan ahayn amuurtu, inaad maalin kaliya xustaan wadanka oo 364 maalmood wadanka la hilmaamana xaq maaha. waxaa la socotaan xaaladda guud ee wadanka, laakiin maadaama anagu aan wadanka joogan shacabkana aan la noolahay waxaan rabnaa inaan idiin sheegno xaaladda qofka Soomaaliyeed oo Soomaaliya gudihiisa jooga maanta uu ku nool yahay, gaar ahaan xaaladda waalidka Soomaaliyeed oo Soomaaliya jooga ay ku nool yihiin, aabbaha iyo hooyada Soomaaliyeed. waa ogtihiin wadankeena inaysan jirin meel kaliya oo qofku uu u kallaho oo uu ka heli karo adeeg inta uu doono ah oo lacag la'aan ah. tira ahaan dadkeena waxaa lagu qiyaasaa tirada ku nool wadanka inay yihiin ilaa 9 milyan oo qof. 9 milyankaas qof waxaa inta shaqayn karta waa badan yihiin, laakiin tira koob ahaan waxaan ognahay in 25% ugu badnaan dadka shaqayn kara ay shaqeeyaan, 75% shaqayn karana ay guryahooda fadhiyaan. 25%kaas shaqeeya haddiiba ay helaan lacagtooda iyo mishaharkoodu waxaa laga yaabaa sanadkii oo idil hadday shaqeeyaan lacagta soo gasha inaysan ka badnayn $1,000. meeshaas ka garan kartaan qofka dakhligiisa kalayaan isla eegno marka qofkaasayta waxa sugaya in uu bixiyo. waxaan ka bilaabaynaa caafimaadka. wadanka aan wada leenahay Soomaaliyeed ma jiro xarun kaliya oo caafimaad oo bixisa daryeel caafimaad oo buuxa oo lacag la'aan. qofka hadduu xanuunsado waa inuu $1 sitaa ama lacag $1 u dhiganta. waalidiintu waxay gaareen heer aysan ilmahooda aysan geyn dhakhaatiir oo ay geeyaan farmashiyo ay daawo uga gadaan, hadhowna daawadaas ma awoodi karaan inay wada siiyaan. waxaa dhaca mararka qaarkood inay waalidku go'aansadaan inay ilmaha qaarkood daawada siiyaan, ilmaha qaarkoodna aysan daawada siin waayaan. xanuunka ay leedahay arrintaasna waxaa garan kara qof kastoo waalid ah inaad gaarto heer ilmahaaga inaad qaarna u qoorto inaad daawo siiso, qaarna aad ku eegato aad ku fiirsato xanuunka. kaalayaan isla eegna waxbarashada. Soomaaliya waa markii ugu horreysay taariikhda ay tiro badan oo intaa hadda gaaraysa, anigu tiro koobka hadda ma hayo, ay fadhiyaan guryaha wiilal iyo gabdho da'dii iskuulka la geli lahaa gaaray oo 6 jir iyo 7 jir ah. sababta taa keentana waxay tahay iskuulaad lacag la'aan ah oo ay ilmaheenu aadaan wadanka kuma yaal. waalidku hadduusan haysan $10 gabadha uu dhalay aabbuhu ama wiilka ay reer ku dhaleen iskuul ma aadayaan. haddaysan $5 aysan haysan aabbaha iyo hooyada waxaa laga yaabaa ilmaha inaysan hingaada baran ama qur'aanka aysan weligood akhrisan.
xagga raashinka haddaan u dhaqaaqno hadda waa garan kartaan qof $2 iyo bar ay soo gashay bishii haddiiba la siiyo lacagtaa waxa uu iibsan karo wax kale ma aha waa waxyaabaha asaasiyaadka oo qofku uu ku noolaan karo keliya. waxaa intaa dheer waxaa laga siiyaa waxaas ay gadanayaan qiimo aysan istaahilin oo aada u fara badan. ma jiro cid ka celinaysa dadkaas oo nimanka ganacsatada sheegtay oo waddanka jooga oo dhibaatada ummadda ku haya, cid ka celinaysa dadkaasayta saboolka ah oo u jaraysa sicir waxyaabaha asaasiyaadka oo dadku u baahan yihiin. waxaa intaa dheer waxaa waddankeena la keenaa oo lagu soo daadshaa oo ganacsatadoo dhan maaha qaar ka mida ay waddanka keenaan shay walba oo xun oo dhacay oo aan waajib ahayn inuu bini aadamka isticmaalo, shay walba xun oo dhacay oo ay tahay waajibku uu ahaa in lagu gubo meelaysan dad joogin ayaa waddanka lagu soo daadiyaa. mar labaad cid ka celinaysa dadka arrintaas oo ka hortaagan nimanka ganacsatada ah Soomaaliya ma jirto. arrintaas waa arrin xanuun badan. aabbahay hooyada Soomaaliyeed oo waddanka jooga hadday guryahooda fadhiyaan oo hal layd keliya u shidan yahay oo aysan shidan waxaa suuragala in bishii $10 laga qaado. haddii ay biyo gurigaas uu leeyahay oo ay tuubo u socoto magaaladuu doona ha joogo qofkaasayta Soomaaliya waxaa laga qaadaya lacag $1 ama waxaa u furan inay isticmaalaan iyaga iyo ilmahooda biyo iska daa inuu qofka cabbe aan ku habboonayn in dharka lagu dhaqo. xaaladdaas way xaaladda Soomaaliya ka jirta. xaaladdaas waa xaaladda aabbaha iyo hooyada Soomaaliyeed soo wajahday. dadka Soomaaliya jooga maanta oo 90% dadka aan ka hadlayna maaha 100,000 iyo 1 milyan iyo 2 milyan waa 90% ka mida 9 milyan oo Soomaaliya ku nool. waxaa ku dhacday niyad jab, waxaa haya xanuun, waxay u qabaan caro wax kasta oo nidaam ah. waxaa ku dhacday inay kalsoonida ka dhunto oo qof ay aaminaan ay waayeen iyo meel ay u kacaan. arrintaasna waa arrin halisa. miciinka keliya ay haystaan waxa waa ilaahay waxa uu fidinayo oo aan miciinkiisu aysan dhammaanayn, laakiin miciin kale oo u maqan oo ay og yihiin ma jiro. taa waxay gelisay caro, taa waxay gelisay dadku inay ku jirto nacabtooyo, taa waxay abuuri kartaa midda aan rabna inaan idiin sheegno oo aan munaasabadan ugu talagalno waxay tahay taa waxay abuuri kartaa inuu waddankeenu uu ka dhaco kacdoon dhaqaale oo weyn oo baahsan oo meel kasta waddanka ka dhaca oo dadkaasay tamaatada oo la xumeeyey oo la dibidaabiyey ay sameeyaan. sababta cid u warhaysa male, sababto maalin walba waxaa lagu hayaa in la quursado. arrintaana ma sii socon karto. waa ogtihiin qofku wuxuu u dulqaadan karaa dhibka waqti kooban. qofku markay dhibaatadu ku badato ay ku dheeraato waxaa sii yaraanaysa rajadiisa, wuxuu u sii dhowaanayaa inuu quusto. qofkana markuu quusto oo rajadiisu yaraato 3 arrimoodba ka fisha: qof aan baqayn, qof aan waxba u naxayn, qof aan waxba maqlayn. qof aan baqayn, wax maqlayn, waxba u naxayna khatar wuxuu ku yahay naftiisa, khatar wuxuu ku yahay maamul kasta ciddii maamul sheeganaysa, khatar wuxuu ku yahay odayaal dhaqameedka, khatar wuxuu ku yahay nabadgelyada yarta ah oo ka jirta meelaha qaarkood waddanka, khatar wuxuu ku yahay waxyaabaha horumarka yarka ah oo la taaban karo mujtamaca adduunka inta wanaagga Soomaaliya jecel ee ka qabteen goobo qaarkood oo waddankeena. arrintaas annagu haddaan nahay isbahaysiga rajo waa ka digni. arrintaa waxaan ka samaynay qoraallo. arrintaas waxay keentay inaan odayaasha dhaqameedka qaarkood aan la hadalno. arrintaas maanta waa ka digaynaa. arrintaasayto arrin aad fududaysan kartaan ma aha muwaadiniinta Soomaaliyeed. cid kaloo aad ku hadlaysaan waddankana ma jirto. waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino dadka muwaadiniinta ah oo nadiifka ah oo Soomaalida ah, dadka aan rabin Soomaaliya inay u noqoto mashruuc qandaraas ah oo 4 sano iyo 3 sano ku shaqaysta. dadkaasaan waxaan rabnaa inaan dhahno meel walba aad joogtaan waddanka waa inaad degdeg u imaataan. haddaad joogtaanna waa inaad is abaabushaan. abaabulkiinana waxa weeye inaad samaystaan guddiyo umuuraha degdeg ah, waa inaad dadka dhex gashaan, waa inaad waddanka xaaladda kacsan oo jirta aad qaboojisaan, waa inaad odayaal dhaqameedka la shaqaysaan, waa inaad idinku xiriir yeelataan, waana inaad hoggaanka ugu sarreeya waddanka aad raadsataan oo aad noqotaan sida waddanka loo badbaadiyo. Soomaaliya maantay u baahan tahay in garab la siiyo. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay cross road, isgoys ama kala baydh bay taagan tahay Soomaaliya. ama waa jiraysaa ama waa dumaysaa. amuurtaanayta nagama aha inaan rabno inaan cabsi idin gelino. umuurtaan nagama aha inaan dangaara kaleenahay. annagu waxaan ku noolahay Soomaaliya, danaheenna iyo howlaheenna waa ka soo tagnay, waa ognahay xaaladda waddanka ka jirta, waxaana ognahay wax guuxa socda iyo meeshuu gaarsiisan yahay. dad badan uma warhayaan, dad badan weli waxaa ku jirta quursasho ay shacabka quursanayaan.
mana sii socon karto walaalayaal marka waxaan rabnaa gabagabada inaan idiin sheegno waa habboon tahay in maalin la sameeyo xaflad laakiin sanadku ma aha maalin keliya in 364 maalmood aad shacabkaas ku fiirsataan noloshaas xun xaq maaha waajibna maaha inaad ku fiirsataan dadka ganacsatada sheeganaya dhibka ku hayo xaq maaha inaad ku fiirsataan ma aha ummadan u haysata siyaasaddu inay tahay qandaraas qoomkaas Soomaaliyeed masaakiinta ana raba in ay inta ay joogaan qandaraas ahaan u arkaan ilaahu rabbi wadankan aan wada leenahay barwaaqada badan ilaahu dhowr ilaahu shacabkan masaakiinta oo u dulqaatay dhibaatada muddada 25 sano iyo ka badan ilaahu dhowr wax walaalayaal wadaniinow annagu intaas way fariinteenu waxaana idin rajaynaynaa ilaahay idinkiis khayr iyo barwaaqo wa salaamantiin waana mahadsantiin